ninka meesha uu ku dhashay oo daan yara ahayd 5 sana biyaha yar u soo dhaafin waaye u kaamili waaye ma wuxuu ka hadli muxuu ahaa masaani ijaara mu qaali kara nin shaqa u socdana ma aha nin shaqa dankana aha ma aha nin umad ma aragti inuu naxariistana ma aha waxa baan dhihi lahaa kaas waa kii laga duceysan jiray oo culimada aan ka maqli jirnay ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يعني إله يعني قرآنك يعني حديثك وحكنا وركدوا عيستا كو إلهنا أن كبقين أننا أنو نحرسنين وما قشنا سما ونظيف نيات دورتا القدارة ولي نور نظيف جاما وذا دورتا القدارة ولي نور نظيف دورتا القدارة ولي نور نظيف دورتا القدارة ولي نور ولا دورتا سيدان دوناي سيدان رينا والله سونالي باسو نقوني سودي وابحس سونالي باسو نقوني سودي وابحس ورير مدعايو يو ويل عدبال الديلي ورير مدعايو يو ويل عدبال الديلي نبات بالو كلا قلبنا قالا يو إسلام نبات بالو كلا قلبنا قالا يو إسلام وقال رسلينا إن ذي بشي قلبيو نذيب عبلا وعلان كاويني هاي نذيب عبلا وعلان كاويني هاي نذيب عبلا وعرادا ودودي هاس نذيب عبلا وعرادا ودودي هاس عدان قالي نواي ولا عبادي هاس عدان قالي نواي ولا عبادي هاس قد بعد وحولا وقالي وانا ولا قمتين قد بعد وحولا وقالي وانا ولا قمتين قلاشان نواض مليعين غيري ما هنا قلاشان نواض مليعين غيري ما هنا نظيفو قوي سوكارا وكالدويا نيكي عبد عيري عبد الحاج علو كيو نيكي عبد عيري عبد الحاج علو كيو صفية عبد النور قريب علمي الأبنير صفية عبد النور قريب علمي الأبنير نيكي علو قيل المرنى عايو صفراي نيكي علو قيل المرنى عايو صفراي عداي متغاي عدكاي لو ما يريناي عداي متغاي عدكاي لو ما يريناي عدكاي نظيفة إسكالي يا عيار طوعان إنا نظيف دسنو عبد الله عن دسنو سو قوان كان قادنا معها مركاني فرحد وين باي قلنا هز قوان كي مالين دي سمودل كسو قاتي دادك ميله مرمراي او لهاي ماركتي قوان كا ميلين او ما اقبلينو عندهنا ظاهر انو غفنا عدنا واد اركايسا غدغي مالين دي لو سو ديساي و كدنبيي ويل كان ادركو اهاي نور الدين محمد يوسف حاجي انو هرغل غفنا واد اركايسا aad baad warka haysaa marka sheekh wuxuu u jecel yahay sheekhow dhawdad ii sameysay waan ku guulisay alxamdulillah waan ku bogsaday anna waxaan u jeclahay
muwaafaqadii samwadal aan qalqaalle ka waday waay hir dhashay waay mira dhashay aad baad u mahadsantihiin dadka aad uga mahad sheegta gadaashiisa waa la rafaaday aadaa loo rafaaday dhib baa la sheegtay meesha waxaan u malaynaa koonti waa dowladda meesha ugu fiican dadkii oonku dhammaanay ama sanadkan biyo waxna warabeen wayne markaan midda ay ahaatee koontigan maxaa la gaariyaa iska fafadheen sidii noola sheegay ilmaha naga dhumi gaareen nadiif markuu joogay maxaa la warkaas lama arki jirin dad badan mishaar qaadanay jire dad geeda iska guraa jire dad masaakiina ku noolaa intaas waxaan uga baxeen nadiif labada waan qaadnay waxaan rabnaa aad baan u faraxsanahay ma ila qaadateen nalama qaadateen waxaan ka soo shaqaynay sidan aan hadda ku soconno dhibid gafana cabdi dhaqan iyo gafana nadiif iyo sanatan cabdul ma ila qaadateen samalo ilama qaadateen samalo ilama qaadateen wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum annagana garabkiina ayaan taaganna boqolkiiba boqol waa idin garab taaganna meeshan wax ilaahay uunte oo cabsi ood qabaysid ma jirto horaana waa idin ballanqaadne haddana waa idin garab taaganna mukaay bilaa waswaasa kula shidoo si sharaf leh ku soo dhawaada waddankiina nabada ku soo dhawaada walaalnimo buuxda idin muuqata ku soo dhawaada haddii rabbi laga waaynin inninkaan idin diyaarna mar kastaaba inninkaan diyaar idinna inninkoo joogin baan diyaar idin ahayn nabad wey samalaal maanta waa isku soo baxna soo maaha waa maqasheen hadda ani ninkaan isla taagnayn meeshan isla joogna gambarka MCA-gna waa isku qaraacayna laakiin mid baan ka noqonay inaan mid ka ahano waxaa way gambarkii governor iyo senator ninkaa wiilkayga aniga sagteena dhinacaan dhignay soo maaha tii maanta waxaa way inaan dhisno nadiif jaamac iyo cabdul xaaji yuusuf ma ogolaateen reejaala diyaar maa u tihiin maan qaadne waan qaadne soo maaha kuwan kalena kareetada soo raacano soo maaha wasalaamu calaykum cabdul xaaji waa sanatageena waa wiilkeena hadal ma ku jira markuu cali bunow intuu madoogaasha istaago mise balanbala istaago uu leeyahay ninkaas ha dooranina ininka markuu inii imaado ma dooranaysaan ma ogolaanaysaan inuu halkan imaado balanbala hadduu ka hadlay uu dhahay cabduul yaa la dooranin muu soo geli karaa guriga cabduul hadduu soo galo naag ma tihin hadduu cali bunow gurigiina soo galo naag ma tihin waayo ficile iyo hiil baa la rabaa ficile iyo hiil baa la rabaa gurigiisa balanbala buu ku dhexdhacay cabduul ma imaan karo cabduul ha dooranina buu dhahay maadaama uu saa dhahay ininkan ha ogolaanina gurigiina inuu imaado cali bunow qorane ma ku ogolaanay gacmahay tusa inta ogolaatay inuu cali bunow imaan karin Unajua, nimeambiwa iko mtu alienda Modogashe, alikuwa anafanya kampeni yake huko, akasema Abdul Haji asipewe kura kwa ajili yeye haongei Kisomali. Anasema kwa ajili siongei Kisomali sifai kuwa senator wa Garissa County. Mimi nataka mumuulize swali moja. Huyo mtu ambaye anasema hivyo alikuwa governor mwaka 5 na anajua kuongea Kisomali. Kisomali yake ilimsaidia kufanya kazi watu ya Garissa. Hiyo Kisomali yake ilifanyia kazi watu ya Garissa. Sasa kama Kisomali ndo muhimu, si ingemsaidia kujenga kaunti ya Garissa na kutumia pesa vizuri? Sasa hao wanasema wao ni KBB 10 bila break. Wanataka miaka 5 ingine wafanye miaka 10 bila break.
sisi tunasema KBB manake Korane bye bye. KBB manake Korane bye bye. Sindio? رجال السلام عليكم مرة السلام عليكم ونهانتي هذا الكيك ابو يراني محايل عاد بالله هذي لكن وحنكون احسن هاي سو دويت وناكسن ومال فوق انا سو قادين انا سوعتين سو اوردين وهدنا الهي مركي ان سو قلنا ميشن aadana taagan tihiin oo aad maartay sida support aad u muujinaysiin ijaara waa wixii aynu qaani jiray wanaaga iyo kalsoonida iyo soo dhaweynta waad ku mahadsantiin insha Allah taala Allah ina barakeeyo midda kale hadal waa dhamaaday hadda maanta waxaan ku jirnaa waa sida la sheegay waa maalimihii ugu dambeeyay waaye waxaan oo hore waa bil iyo wax maartay lamid ah weeyaan waxaan u imaanay maanta inaan aniga oo la socdo walaalkay Cabdul iyo akhyaarta kale nala socota madaxda kale Mheshimiwa Safiya DG Cabdi Dhaqane aspirants muxuu Cabdi Sheekhow iyo rag kale fara badan waxaan inagu imaanay inaan maanta ka hadalno sidii aan ku soo celin lahayn kursigii naga tagay 2017 soo saas maaha dawladii anigu aan wada 2017 iyadoo aad u shaqaynayso ayaa qadar iska dhacay waxaan rabaa Reejara in yar aamusa waxaan soo xasuusin rabaa shaqooyinkii aniga countigayga waaga ay ka qabatay wardka loo aqaano Ijaara in yar dhageysta shaqooyinka aan qabanna waxaa ka mid ahaa anagoo ka dhisnay Boday ba waxaan ka dhisnay maternity waad garanaysiin sama warta ayada waa lagu barbaxay warta ayada dad badan baa meel badan uga imaaday waaqi abaarti si aad baa looga faa'iideystay meesha loo aqaano Xuseen Katalo wal garmi Xuseen Katalo soo ma jirto aydan war baan ka qodnay masalani wadada iyo masalani u dhaxay Ijaara waagi aan meesha aan ku jiray waan hagaajinay si qurax badan aan u hagaajinay laakiin hadda uu halawsan yahay in la hagaajiyo u baahan yahay ninka meesha ku jira inuu hagaajiyo marabo soo dhib ma buula qoqon waxaan ka dhisnay ECD Boday waxaan ka qodnay bohol baan ka qodnay Bulto Hama ma la garanaya Bulto Hama aydan waxaan ka dhisnay ceel ama war baan ka dhisnay Boday waxaan kaloo ka dhisnay health facility muxuu ahaa moyit ayadana ceel baan ka qodnay ama war baan ka qodnay warsame ECD baan ka dhisnay ruuqa maternity-gada waan bilownay laakiin ma dhamaytirno Sangoley waxaan ka dhisnay dispensary markii la isku dardaro intaas waa 16 project baa warkan kale laga qabtay markaan isku darno shaqooyinka kale ee ma ka qabanay sub county-ga loo aqaan Ijaara ilaa iyo 70 iyo qadar project weeyaan horta sida ogaada ilaa iyo 70 project baan ka tirinay oo laga qabtay wardkan ama constituency loo aqaano Ijaara constituency ama Ijaara ee huluuq bar isku daro marka waxa hadda ay Soomaalida tiraahdaa qabya ninka dhameysata Sooma anigu qabyo badan baa ii taale markuu Ilaahay qadaray oo kursiga iga tagay ama naga tagay qabyo badan baa noo taalay qabyada waxa kamid ahaa mashruuca biyaha ee aan ka soo qabanay masalani waxaad horta aan rabaa inaad ogaatiin mashruuca biyaha wuxuu ahaa mashruuca ugu weyn ee county-gan aan ka qabanno lacag badan baa ku baxday mashruuca waxaa loogu talagalay in biyaha lagu sifeeyo masalani si fiican loo gaarsiiyo markii masalani laga soo qaadana biyaha in la soo qaado oo la keeno ruqa la soo dhaafiyo oo la keeno Ijaara bay yani mashruuca inta uu leeyahay iyo planki aan u sameeyay horta saas waa ogaada waxaa dhacday unfortunately Batimbaya
anagoo mashruucii maaragta dhammaytirnay oo biyihii masaani weli aana ku baahinin oo aan u soo dhaafinin ruqa iyo ijaara ayaa qadar lagu dhacay hadda maanta waxaan doonaynaa hadduu ilaahay na soo celiyo in biyaha mashruuca oo u hore aan qabanayno wuxuu noqon doonaa ilaahay idinkiis in biyaha aan soo gaarsiino ijaara iyada ay soo maraayeen ruqa waxaana idiin sheegayaa arrinta ayada xataa waxaan isku egeen muse xaaji allah u naxariisto marka insha allah shaqada hadda waan isla qabanaynaa cabduul baan isla qabanaynaa mp-gaan isla qabanaynaa madaxda isla qabanaynaa meesha tan dhib badan baa la soo maray 5 sano waan la soconnaa keligiina ma aha waa meel kasta oo countiga laga soo bilaabo ilaa iyo liboy ilaa iyo boday ilaa iyo daanyere waxaan idiin sheegi rabaa hadda ninka ku faanahaya cabduul waa runtiis cabduul hadalka uu ku hadal weyn weeyaan bal aad u dhegeyso waxbaa idiin sheegi rabaaye may maqlaysin gabdhaha ay maqlax baa idiin sheegi rabaaye aamusa eeg nin baa cabduul wuxuu ku cambaareenahay af soomaali ma aqaano cabduul jawaabtiisa waa jawaab sax ah war wuxuu yidhi adiga af soomaali taqaana maxaad af soomaaliga muxuu kuu taray af soomaaligaadi muxuu faa'iido keena ku wuu weydiiyey su-aalka ha ka jawaabo waxaan idiin sheegi rabaa magaalada daanyare la dhaha dhowr mashruuc oo waxaa jiray mid kale hadda aan sheegi oo masaana ay ka mid tahay mid kale oo macallimiin ku yaallo mid kale oo daanyare ku yaallo dhowr mashruuc oo waxaa jiray waweynaayeen oo waaga aan bilaabay oo iyagoo qabyo ah qadar igu dhacay meesha loo aqaano daanyare ee uu ku dhashay mashruuc biyaa jira oo aan ka soo qabanay webiga sida masalaan oo kale webigaan ka soo qabanay mashruuca asaga 85% waa dhammaystiran yahay birihii waa la suray baybkii waa la sameeyey wixii kale waa la qabtay keli wuxuu u baahnaa uun lacag yar oo lagu dhammaystiro waa daanyare waa meesha uu ku dhashay ninka meesha uu ku dhashay oo daanyare ahayd 5 sana biyaha yar usoo dhaafin waaye u kaamili waaye ma wuxuu ka hadli muxuu ahaa masaani ijaara muu ka hadli karaa nin shaqo u socdana ma aha nin shaqo dankana aha ma aha nin ummad ma aragtay inuu naxariistana ma aha waxaa baan dhihi lahaa kaas waa kii laga ducaysan jiray oo culummada aan ka maqli jirnay rabbanaa laa tusallid calayna man laa yakhaafuka walaa yarxamna yani ilaahu yani qur-aanka yani xadiiska wuxuu ku leeyahay war ka ducaysta ku ilaahayna aan ka baqayn annagana aanu naxariisanayn waa maqasheen sooma maxaa ilaahay baan kugu dhaashay meesha la leeyahay cisbitaaladii oo dhanba dameeraha ku dhex ciyaaraya meesha la leeyahay muxuu ahaa cisbitaaladii daawo male waxaa lagu dhihi cisbitaalkii weynaa ee Garissa ee waagaygii number 1 waddanka ka qaatay baa maanta waxaa leeyahay male Panadol waxaa soo dhibaato ma soo dulinimo ma tolnimo waxaa tolnimo miya madaxnimo ma noqon kartaa marka hadda waxaa idinku inaan ku sii dheeraada ma doonay cabashadaasa meel kasto countiga taalla inta meel aan soo maray waxa la sheegi karaa marka maanta waxaan u baahannahay nin baa shalay wuxuu yidhi countigan nadiifo waxay u baahan tahay badbaada maanta waxaan u soconnaa ani iyo cabduul cabdi dhaqane iyo madaxda kale waxaan u soconnaa inaan maanta countigan badbaadino waad maqasheen soo maha maxaa yeelay haddii bal ilaahay baan kugu dhaashay calool adeega khaladka ah nin oo sida countiga u gala baa ku leeyahay kumi bilaa break yani 5 kale igu dara oo 5 kale muxuu ku muto waxa lagu dare bal waxa uu ku muto lagu dara maxay tahay marka hadalka cabduul sax waaye kumi bilaa break ma aha korone bye hadalka waa sax soo ma cabduul hadal aad u weyn buu ku hadlo waa hadal qabsi ah هذا ما سنتين إن يرقادية هذا ما سنتين قبلها ولا لها هيس تاشيت مركي لها سوان جبونا وهاي يجوجي وهاي وهيس خطر ويا قبلها رجع هيس ما قرناين لكن قبلها وحيلين ودن كان ورك كذا وحين ورايو قوة ما قرناين إني قرنسي very good مركا إن شاء الله تعالى كفاية بس إنه هاني إن شاء الله ودن كوارث ولا قداني وصون قنينا محوها
marka inaan kusii dheeraado ma doonayi hadalka waa dhan yahay